injineer daawud abiib axmed oo ka mid ah xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye oo maanta tv-ga qaranka somalilan uu kula kulmay degmo dalxiiseedka arabsiyo ayaa fariin u diray mucaaridka somalilan. geesta kale waxa uu ka hadlay dowladda taagta daran ee ka arrimisa villa Soomaaliya oo uu ku tilmaamay iyadoo 1 kiiloomitir aan ka talin inay isku qaaday si indhala-aan arrimaha Somalilan. waa sida uu hadalka u dhigay injineer daawud abiib axmed oo ka mid ah xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye ayaa waxa ka mid ah hadaladiisii. alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaani raxiim. hadda waxaan joognaa degmada wax soo saarka. waxaan u nimid dhalashadii nabigeena suuban calayhi salaatu wasalaam. waan ka soo qayb galnay alxamdulillaah, waayo dhalashada nabigeenu waa muhiim sallallahu alayhi wasallam. inta haddaan ka yar faa'iidaysto wax yaroo kale oo kolley waa adduunya la joogaa, adduunyaduna way hawlo badan tahay. marka haddaan in yar ka faa'iidaysto waxaan odhan lahaa oon hadda halkan ku salaamayaa saaxiibkay suxufi xuseen oon isku aragnay halkan. saaxiibbo horna aanu ahayn baan hadda halkan isku aragnay. suxufi waa kan hawlihii waa kuwan aad dhowaan dee waxaa bilaabmi doontaa kaambeynkii, waxaa ku xigi doonta codayntii. sidaad og tahay baa madaxweynaha qaranka somalilan wuxuu bariya galbeedba ku soo maray socdaalkaasi uu ku hurgelayo xaaladaha dalka, wixii qabsoomay waxaan qabsoomin uu ku mahadsan yahay. waxaa xigtaa shalay toole waxaa la qaatay kaarashii baa la qaatay, maxay ahayd shahaadooyinkii baa la qaatay. wixii intaa ku xigaana waa garoonkii dee oo nin walba wuxuu soo shaqaystay buu garoonka la tegayaa. kii cay soo shaqaystay cay fara badan soo buuxsaday garoonka wuxuu la yimaadun buu la iman. kii waxqabad soo qabtay iyo wuxuu bulshadiisa maxay ahayd soo hantay qulubta shacbigiisuna garoonka wuxuunbuu la iman doonaa. waxa weeye somalilan maanta caruur maaha. somalilan maanta waxa weeye waa dal gaboobay weeye, doorashooyin fara badan soo maray weeye, kala garanaya ka waxu qabanaya kaan waxu qabanaynin. marka laga tago sheekada miidiyaha ee had iyo jeer taagan, hadday dumar tahay, hadday rag tahay, wax tiktok laydhaa, wax facebook laydhaa, wax caynkaas lagu tilmaamay hadda aad moodaba inuu caalamkii wareeriyey oo kii hadlaaba ama qofkii qofacaaba maxay ahayd wax iska soo duubayo. si walba haatee maanta waxaan leenahay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan wuxuu u baahan yahay garab istaag, waayo waan soo tijaabinay dalka. sidaad og tihiinba waxaa ku soo dhacay hawlo fara badan, warmo fara badan baa ku soo dhacay oo aad u fara badan. warmihii faraha badnaa wuu isku wada dhigay, kamuu gambar xataa warmahaas wuu isku wada dhigay, wuu iska wada qabtay. dalkiina wuxuu maanta u jahaystay waxa weeye waxay dadku jecel yihiin. dadku waxay jecel yihiin waxa weeye waa horumarka maanta iyo badhaadhaha maanta aan ku jirro. way jiraan dhaliilooyin, laakiin waxaan jirin macaaridkii sheegi lahaa dhaliisha dawladdu ay leedahay ama toosintii dawladdu ay leedahay toosin lahaa baan jirin, oo ku mashquulay hebel waa nin xun, wasiirka kale waa nin xun, madaxweynaha waa caynkaas. waxaa loo baahan yahay wax iib gala, waxaa loo baahan yahay mucaarad wax iibin kara oo dadka wax u sheegi kara. laakiin mucaarad looma baahnaa 7 sannadoodba soo qayliyey, 7 sannadoodba maxay ahayd qolboqol intuu carruur yar ku xaraysay ree hebel, halkana waa ree hebel, halka kalena waa ree hebel. haddaba waayo xisbi baad doonaysaa inaad dhisatee, xisbigaagu ma xisbi ree hebel baa ma madaxweyne ree hebel buu noqonayaa? maxaad u jeedaa? taa macnaheedu waxaan isodhan karaa mararka qaarkood waxayba u buuxinayaan oo ama maxay ahayd markhaati ay uga dhigayaan inay madaxweynaha iyagu ay leeyihiin waanu necabnahay, inay dadkiiba jeclaysiinayaan oo dadkiiba jeclaanayaan oo ay arkayaan. marka waxa weeye haddaa xalay beenta haddaad ku celceliso oo beenta aad ku celceliso, qaar baa run moodaya. waxaan uga socdaa maanta madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan arrimihii dibadda waa waadax. dalal badan oo aan ina aqoonin baa ina bartay, magaceennii baa meel walba maray, horumarkeennii iyo aqoonsigeennii baa miis walba yaalla. faalid soomaaliya itaaliya waxay tidhaahdaa dalka soomaaliyeed, maxayga soomaaliyeed, midnimada soomaaliyeed. waxaan leenahay waxaasi wax lagu qoslo weeye.
maxaad Soomaaliyeyn waxaad haysataa ama aad joogtaa only 3 kilometer 3 kilometer baanu codkaagu dhaafin 3 kilometer baanu xukunkaagu dhaafin dalal kale oo adduunyada ku yaalana waxaad leedahay aniga xukuma adduunyada kaad ka dhaadhicisa caynkaas ama dalka aad ka dhaadhicisa tira halka anaa xukuma waa dal gabay dadkiisii iyo dalkiisiiba waayo hadduu garan kari waaye inay yihiin labadan laba wadan oo midna yahay midka xalaasha maxay tahay xornimada haysta midna uu yahay ka 3 maxay tahay bishiiba ama labadii biloodba meel qiiqo iska taagayo ee qarxaysa ee ololaysa waxaas wax la iib gali kariya ma waxaan u sheegayaa dawladaha jaarka iyaga qaar hinaaseen hinaaso waxa weeyaan rag buu ku wanaagsan yahay waxa dumar buu ku wanaagsan yahay laakiin ragga kuma wanaagsana waxa ka fiican inaad tira war maxay inoo dana waxa soo socdeed ka hinaastay inaad tiraahdo war balbeertan jeeshka halkan aniga waxay ka sii halka kalena waxay ka sii ilaa dad wada dhasho wada joogaynu nahay laakiin haddaad tiraahdo yuu qadaynin yay talaaba bilaamin yaan la aqoonsanin what you are zero batadna runta marka la isku sheego waxaan u sheegayaa oon hambalyeynaya oo wanaagsan madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar iyo suldaanka guud ee Koomade waxa weeyaan halkaana suldaan buu yahay halkaana suldaan buu yahay wuxuu ugu yahay wadad Soomaaliyeed laakiin isma yaqaanaan kuwa xagga jooga isma yaqaanaan cidii dan igu jirto ama meel wada joogtun baa isku dana waa Ethiopian waxa laga yaabaa maxay tahay Soomaaliland kala badh hatta anigoo Ethiopian ahay taa macnaheedu waxa weeye halkana waan ku qaraxsanahay halkana waan ku qaraxsanahay halkana dadkayga baa jooga halkana dadkayga baa jooga ka soo bilow maxay hay'adda Soomaaliland oo dhan waa sidaa maadaama ay sidaa tahay maxaa u dana ka halka jooga iyo ka halkan jooga dayna barwaaqo gaadhaan ina wax helaan ina maxay hay'adda horumarkooda isgaaro in wuxuu adduunyada uga baahan yahay inuu halkan dhow ka qaato kaasina uga baahan yahay inuu wax jaban helo kana uu helo shaqo oo dadkan maanta bila camalkee meelaha iska jooga shakhsi walbaaba deeno shaqo helo waa muhiim laakiin hebel baa dawlad maxay tahay waa dawlad heblaayo hadhow bay waxba qaadan mayso adduunyada waxba la kala kareystaa haddii la kala kareysto adigu dan hesho adna aad aqoonsi hesho cidna cid kama xoog weyna cidna waxba ka qaadmayso waayo waxa weeye waan dadkan ku qaxnayba ila siigayaan badi abaal bay nagu lahayn wax kale iska daayan la siigayaanba laakiin kale waa badaydii kale waa badaydii ee doqonka ah ee al-shabaabka ah ee al-shabaabta la shaqeysta ee aan xorta ahayn ee mushaarkiisa maxay hatay al-shabaab ay ka qaado ee aan xorba ahayn ee dawladii ilaalinaysay 32 sanadood dawlad baa ilaalinaysay dawladii ilaalinaysay abaalkeedii muu gudin ta kale aan kugu sheegay waxa weeye Masar maxaan isku nahay annagu Masar waxaan u naqaanaa cadawga geeska Masar waxaan u naqaanaa dal aan jirin baan u naqaanaa Masar waxay doonaysaa inay baabiiso koonfurta Soomaaliya annaga waxba ka qaadmayse halkaasaan ugu tagi iyada laftigeedan halka ugu tagi waayo waa cadawgii geeska qof kasta oo isku daya ama Masar ha noqoto ama dawlad kale ha noqoto cid kasta oo isku dayda waa ciidan aqoon u lahayn Somaliland badaan ugu dhex tagi cirkaan ugu dhex tagi meeshan doonaan ugu dhex tagi waayo waxa weeye annagu waan naqaanaa dhiifta dirireed baan naqaanaa من هين ضد حيح لا يرادو أما ضد شو لو قراعه فلسطين بيحترم أنا جو من هين واحد يجو إيطالي ماذا رجعني مذوده ما نك مسلم الشجع أنا جو واحد نك مسلم الشجع لا إله إلا محمد رسول الله له أكتي سقيق وخبى حيو همين والب مدفع لقرده محيطه أنا فلسطين لقرده أكتي حتى واحد هدول وفلي ما طعم كرو من روان كرو من أودو لكن واحد يدون برضه بريو يلاحظه والبرهرت كد ماتنا كداية قلت الماتدا كدايون يلا بهيد عندما أنا جو إسرائيل بامن ويرانا إسرائيل في إثيوبيا أيان ويا إثيوبيا إسكداية
soomaaliyeed bay Itoobiya qaadanaysa war Israa'iil baan dhex keeni haddaan doono Ruush baan dhex keeni haddaan doono Mareykan baan dhex keeni hadda waaniga dhex jooga adna xamar baad maxaa mikrofon intaad qaadato tiraahdaa badda Soomaaliya maxay Soomaaliyeed maxay runta la isku sheegaya waxa tahay kaan eriyaday waxa tahay kaan dalkayga ka xoreystay waxa tahay fuligan ogaayay faqash adduunyada maanta abeenta u sheegaysa dal Soomaaliyeed baan xukumaa dad maxay baan xukumaa de haddaad xukunto bal garoowe kaalay bal maxay hayto ilaas caanood kaalay bal maxay hayto Hargeysa kaalay bal Indian bal badda casr soo dhex joogso badda casad ka sheekeynaysa waxa ana haysta furihii badda cas ana haysta furihii baabil mandab istaraatiijiyada waxa isi Allah isiiyay dalkayga waxa ku yaala 450 ceel oo shidaala 450 ceel ee shidaalkay ku yaala intaasay teedsan yihiin waxa weeye ka soo bilow ka halka soo bilow ilaa ay maxay hayto kaasay ilax ku soo maxay hayto waxaan ognahay dawladda Carbeed oo aqoon lahayn inay Soomaaliya lacag ku siiyaan Turkiga hadduu soo baddan ka sheekanay hadduu soo shaado shidaalku waa ka Soomaaliland mana iman karo wuu iman karaa oo wuxuu ku iman karaa aqli buu ku iman karaa oo maskax buu ku iman karaa oo raganimo ku iman karaa uu Soomaaliland kala heshiiyo waxa weeyaan ceelka halka ku yaalaana Carabay ama AC shido ama fooq dheer shido ama maxay hayto lacagta ku hadal ama baqtiya nasiib ku bixi ama sida doonta yeel waxa weeye ceelka maalinta la dalooliyo aan ku sheegayo waliba tab sigrado waan qaranayaa ceelal halka ku yaala marka la dalooliyo adoo qaxootiya ayaa niman maanta lacag baad ku kharash garaysaa inay nimanka halka jooga ay wax ku qaban karayaan oo maxay hayto wax ka heli karayso hadalka waan dheereeyaan filayaa maanta waa maalin ciida oo waa dhalashadii Nabi Maxamed alayhi salaatu wasalaam sallallahu alayhi wasallam nabigu 63 jir buu ahaa 63 jirka uu ahaa waxa weeye maanta dhashay 63 baa ka dambeeyay ha ka dambeeyaan waxa weeyaan ninka nabiga diida de isaga u taala ee diiraada hatta waxaan maqlayay qaar Miriam imika hadda faraha batay waxaan maqlayay qaar le maxay hayto hilibka qansiirin cunay iyo la mid yahay ba anu ma garanay daliilkeen markaad daliil keento diiniyana aad keento oo qowlkii Ilaahay aad keento de waan ku raacay baan deenibe bal daliilkeen laakiin bila daliil haddaad iska cidla ka cida war dhib weey anoo ixtiraam ku haya anoo qof diin bartay ku arkaya anoo ku arkay laakiin kelmadda aad diidayso waxa weeyaan markaad shahaadatay la ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah tiri ayaa afurihi nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam de ma halkaad ka soo gashaad banadaysaa markaad rasuulka aad sheegto waxyaabo aan u geyn aad waxyaabaha caynkaas aad sheegtaan waa nasiib darro hoos u dhigaan lidilaahay oo cilmiga bartaan lidilaahay oo aqli keenaan lidilaahay waxa weeyaan wax biyaanku idinka iib galana keenaan lidilaahay waayo markaad keentaan waad ka garhaysaan dadka aad u warramaysaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحفي سريع حسين aad baan kugu salaamayaa maxay hayto Soomaaliland oo dhan waan salaamayaa ciidaasan ugu bashaarinayaa bulshada muslimiinta dhamaanteed yana kala reebin dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Soomaaliland السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسى حسين حسن warbaahinta qaranka Soomaaliland degmada dalxiiseedka Arabsiyo ee gobolka Gabiley